الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ولا الليال وحين كسر هذا اللي سعادة إياه وحلا وهلا أما الليبانتا فرحدة كوشة الدنيا دي آخرة وحكم ذا وحيابها الله وهلا معانك إيه وناقة نلاشة قناعة وحلا يرعاه waxaynu ku fasiri karnaa iimaansiga ama qofka ku kaaftooma wixii uu helo Ilaahay uu siiyo ku arsaaqay adduunyada iyo anficida kala duwan. qanaacadu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan. qofku haddii qanaacadu ka maqan tahay sacaado ma haysto, war walbuu ku nool yahay, meel buu hanqal taagayaa, ma afdhigayo, nicmada kuma kalsoona, balaa badan baa haysta. فإذا كذا وحكم دليل على قوة الإيمان. قفك هديو يهاي قف قناعة لكو كالصام وحول هاي سي وحي شيء إيمان كي سنة أود لي. تابعي وين حسن البصري رحمه الله وحورينا من ضعف يقينك أن تكون ما في يدك أوثق بما في يد الله. وحكم إذا يقين هذا يقناع حمض هذا inaad waxa gacantaada ku jira kaga kalsooni badantay waxa Ilaahay xaqiisa ku maqan oo kalsooni aanad ku qabin waxa Allah ku hayo, laakiin aad kalsooni ku qabto waxa qasnadaada iyo jeebkaaga ku jira. marka waa dadka wanaagsan qiimaha badan ee darajo ay gaaraan waxa ay faa'iido ka tahay qanaacadu yatahaqqaqu biha ash-shukru lillahi subhanahu. qofka qaanica waa shaakir. qofku hadduu ku qanacsan yahay wuxuu Ilaahay u qorsheeyay u gartuu qadaray sacaadana uu helayaa, Ilaahayna wuu mahadnaqayaa shukriga taa ku yimaada. xadiis Tirmidhi warinayo oo xasana min xadiis Abi Hurayra nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas. qof iyo muslimkii waxaad noqotaa mid xalaal miirasho badan oo xaaraanta ka badbaado oo iska ilaaliya. xaaraantu ay kula fududaan xataa waxaan xaaraanta uga shakida iskaga tag. waric baad noqonaysaa qof xalaal miirasho badan, ducadaada la aqbalaya, deeqda alla uu ku siiyaa ku barakoobaysa. wa kun qani'an takun ashkara an-nas. waxaad noqotaa qof qanaaco leh oo aan ka kanayn oo aan hunguri weynayn oo mamanayn. waxaad noqon doontaa dadka ka ugu shukri badan. asbaabta iyo waxyaabaha lagu helo shukriga ee xaqiiqo uu ku noqdo qanaacada kamida. faa'iidada saddexaad ay leedahay waxa weeye innaha sabiilun ila alxayaati tayyiba. nolosha wanaagsan ee dadku ay adduunyada wada raadinayaan waxa lagu helaa qanaacada ayaa lagu helaa. qofku inuu ku maarmo ku kaaftoomo wuxuu Ilaahay u siiyay subxaanahu wa tacaala. إلهي بأوحر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قفك الله رمية سوى ناكسن إلهي عابده نلال وناكسن بانو نالين إنابا إلهي ونلاشي سعادة الهيد. ابن عباس، علي بن أبي طالب، حسن البصري وغيرهم وحي كفسر نلاشا وناكسن القناعة قرشها الله قفك كو قنعويا بها. فإذا كذا وحكم إذا أفراد وشفاء من داء التسول والطمع. دادكو إن إسكت أيام طمع النمضة وحكلا دونك داد وحدتك لأيلين إن الدونان أما التسول كأي بتصدان سواش وحيابها كده ويا وحكم إذا قناعة هدو قفكو قانعي هاي سواشا وما بحيو وإسكت دينيا وكفو قانيا إنو عيد وحويديستو. أصحابي قيل لو ننشري حكيم ابن حزام الله كرر النوض ما القبين بوها سياي كان نقطي أما وحوقة شيء ذا نبي قويم صلى الله عليه وسلم حلو ويديستوسي هذا لو ويديستوسي هذا لو ويديستوسي 10 هذا نابل لقى يا باي عبرة إنه وقت شيء ذا
markaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam xakiim bnu xisaam xakiim ina hadihi dunyaa xulwatun khadira adduunyadani marka la eego xagga eegmada waa cagaar qofku wixiisa marka uu daadaawanayo way la cagaaran yihin marka la cuncunayana waa macaan qofka qaata iyada oo loo quudhay oo loo gartay ilaahay baa u barakaynaya qofka biishraafi nafsi ku qaata isagoo dadka xaduuraya oo dhibaya oo keenta ku badinayana allah uma barakeeyo ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam walyaddu lculyaa khayru min alyaddi sufla ogowo gacanta saraana ka khayr badanta hoose inaad noqoto ka wax bixinaya ayaa ka fiican inaad noqoto ka qaadanaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xakiim waa ku quustay oo wuxuu yihi waxaan ku dhaartay inta aan noolay inaan cid dambe waxba weydiin waanu ka dhabeeyey waktigii abubakar asidiiq radia allahu canhu uu madaxda ahaa dadka muslimiinta xoolihii la qaybinayo xaq u yeeshay xakiim marka loogu yeedho ma qaadan jirin waktigii cumar ibnu khadaab marka la yidhaa xaqiisa qaada muslimiinta loo qaybinaya ma qaadan jirin cumar markaa markhaati buu u samayn jiro wuxuu odhan jiray ninkaasi wixiisii inuu diiday ogaada marka qadiyata tasawul daahiratun hayru xadaariya dadku inay isu taagaan uun inay waxuun dadka weydiistaan waa arrin aan wanaagsanayn haddii qaranku caalamka dawarsanayo oo aanay isku filaanshaha ka fikirayn oo qofku qoysku cid dawarsanayo oo qabiiladu su-aal u baxdo oo sheekhu siyaaro ururiyo oo suldaanku sado ururiyo bal waayahay dadkii yaa u baxaya wax siinaya ama qofkii reer magaalkaa kii yimaada ee miskiina u idhaa shaxaad baan kaa rabaa waxbaba namaasi waxaadna siisay wuu yarya oo qofku markuu saaxiibkii arka ama ehelkiisa uu arka uu kasii firdhadu idhaa iminkay wax ku weydiin ama koorhkiiyo kaba ay kaa qaadan kadeedka mujtamacu u badanaya idan waxaa loo socdaa waxa weeye qanaacadu ay u taagan tahay in lagu rabeeyo dadkoo la baro ummadda islaamka iyo qofkooda inuu isku filaansho dadku ay yeeshaan oo qofku uu wax qabsado isuna diyaariyo dadka intuu culays ku noqon lahaa inuu wax ku taro faa'iidada shanaad uu leeyahay shaygan la yidhaahdo qanaacadu waxa weeye waa xaqiiqatu lghina qaninimada dhabti waa qanaacada qofka qaanica ah ee wuxuu ilaahay uu siiye ku qancaa waa qani kii kalena qani maaha حديث بخاري مسلم كسجان من حديث أبي هريرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس قرن نمذو ما حول بدن الله ورصدا لكن قرن نمذو وحوية النفط قفكونه كوكافته أما يسكت دقيه هاي يمير قبو عقدكته أو حول هاي وسيه وكقنع سيه هاي أيا أهب النبي يقول لي قرن نمذو النفط لكن حول بدن وقفك صور السلامة imise taajira baa xayraansanoo kulul oo wax dad kale eegaya imise madaxabaa afdhigila oo mushaharkiisii ku filaan waaye oo gunadiisii ku filaan weyday oo wixii ummadda uruursanaya wuxuu sharxayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka qur-aanka ilaahay baa wuxu uhi wawajadaka caa'ilan fa aghnaa ilaahay baa ku helay nebi maxamed oo markuu ku soo diray adigoo faqiir oo qani buu kaa dhigay waxaana la ogsoon yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee dhaxalba kama dhiman xoolaba ma dhigan nebigu calayhi salaatu wasalaam qaninimana ilaahay uu ku sifeeye waa qanaacada faa'iidada lixaad ay leedahay waxa weeye alqanaacatu fiiha alcizu wadamacu fiihi dul waxaa la yidhaahdo gobonnimadu qanaacaday ku jirtaa dulliguna waxa uu ku jiraa damaacinimada qofku intuu damaaciyuu dad kale waxooda eegayo waa daliil sharaftii iyo gobonnimadii u dhaafa laakiin ummaddu markaa isku filaato dharkeeda iyo dhuunigeeda iyo waxay dhisanaysa iyo waxay u baahan tahay ee shisheeye ay ka maarantay cid gumaysanaysa ay ka maaranto dadkaasi gobonnimadoodii way leeyihin waxaa la yidhaha man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qofka aan quudkiisa haysanin iyo wuxuu u baahan yahay qaraarkiisa ma haysto idan markaa dadku waa inay ku xisaabtamaan inay isku filaansho iyo wixii awood ay leeyihiin inay cuskadaan bacd allahi subxaanah oo qanaaco ay ogaadaan xadiid saxiixa waxaa ku sugan malakul jibriil baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam
وتلمامية وحنبي أو تلمامين وما ضرنا بو تلمامية واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وأن عزه في استغناه عن الناس وحالو قاتابو النبي محمد وشرف قفك مؤمنك وحا وكجرا هبينك إلهي وعباديست markay dadku fuuraan ay seexdaan ee hurdadu ay ka badato qofka Ilaahay isu taaga waqtiga alla xusuusta ee Ilaahay sortaaga sharaftu taasay ku jirtaa way allu ku xiran yahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay buu ka dhisan yahay qofka Ilaahay xaqiisa ka dhisana sharaf leena waxa weeye waa shariif qofkaas amaaniyo wanaag leh wa izzuhu istighnaa fi istighnaahi 'an an-nas gobonimadiisuna waxay ku jirtaa iyo kornoqoshadiisu inuu dadka ka maarmo mid u dhawiya mid ka dheerba mid shisheeya mid sokeeya waa arin uu nabiga u tilmaamay malagu laakiin ummadoo dhan uu tacliiminayo jaakum jibriil yuallimukum diinakum siduu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam malagani wuu idin yimi isagoo idin baraya diintiina markuu arkaanta iimaanka iyo arkaanta islaamka baraya rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo asxaabtiisu inay baahnaayeen oo duruuf ay iska jirto dhaqaalahoodu yaraa haddana wuxuu ku rabayn jiray qanaacada inay ogaadaan oo wax qabsiga badiyaan oo damaca iska daayaan markaa wuxuu lahaa midkiin intuu xarigiisa qaatay inuu xaabo soo gurto oo uu iibiyo oo bar sadaqa u bixiyo barna ee masaariif ka dhigtaaba uga fiican inuu dadka wax weydiisto iyadoo laga yaabo intuu weydiisto hadalkii uu ka dhacay inaan haddana waxba siinin ay u aamusaan qanaacadu waxa weeye shayga kaliya ee ilaahayna kugu jeclaanayo ummaduna kugu jeclaanayso qofka hadii la yiraahdo bal ka waran arinta qof waliba ilays buu ku raadinaya wuxuu dhawaaba shaygan u baahnaaba wax ilaahayna igu jecel iyo ummaduna igu jeceshay waa inta badan dadku waxa ay kugu jeclaanayaan wuxuu badan yahay wax ilaahay kugu nacayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam taa inoo sharxay xadiidkii saxiix ahaa ibn maajah ku sugnaa wuxuu izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad عما في أيدي الناس يحبك الناس الدنيا ده كل حساهي أو هوالا أو يده هوريرنا إلهي هو ساجين الدنيا ده إسكابش قيس لكن وحي تهاي أجو وإلهي الدنيا هيستنافسن إن إلهها قاعد يقول رميسنا وعمل فلايا كل حساهي ده الدنيا ده وعقيدين وهلك عبادة هجلين والله هو ساجين وحكى الدوان الزهد عن الدنيا والزهد في الدنيا إن الدنيا ده لقت تجو ولا جساهدة تسحمها ورجع كنيسة وسيك باقينا وباطل لكن الدنيا ده قف كسوة كل حجراش قيسنين وكل حساهدة وحي شيء جيسا إنه إلهي يدين توسيق مركز تاسيل هذا كوش علاني هذا زاهد في الدنيا وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس دتك وحود أنا وداه يقولون ويكوش علان أصحابته منطلق عسير كدول تشيرينو مديا كمده marka uu shaabuga ama uu ka dhacdo isagoo faraska ku sugan ka ag jooga ma oran jirin ii soo dhiibay uu degaya uu soo qaadanaya si baahida uu yareeyo bani aadamka caabidkii weynaa maxamed ibn waasic looranaya maalmaha kamida nin baa wuxuu arkay isagoo isku cunaya al-khubza bil ma baalka rootiga la yiraahdo ma canjeerada ayuu biyo cad ku cunaya maad wax iskaga dartid buu waa qarax marka kelmad cajiiba ayuu ku jawaabay wuxuu yiri من قنع بهذا لم يحتاج إلى الناس قفك أنت نكون قنعة كوبا ذاتك وما بعضه قناعة واحد تصالين نوجو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سين وكسون هاي حاسس كيسي أصحاب تيسي تاريخ ذو آخر تجار بها هذا أنا قانعين بها قناعة وحيا بها كو إنه سبب كروحة كمذا إنه قفك وجاده الدنيا ذو إن الناف يسوء أي تجي يسوء أنا واري marka waxaan waaray inaan u waaran laakiin uu amal falo waxa waarayo nicmada Ilaahay agtiisa waa inuu eega dadka ka hooseeyo dadka ka sareeya aanu eegin arrimaha adduunyada saasuu nabigu inagu la taliyay calayhi salaatu wasalaam mar wala waxa aad ka warwartaa ama ay kugu filaan waa inaan madamac ku gali lahaa dadka ka hooseeya markaad eegto waxa wada oran doontaa adaaba dadka u sareeya وحكمل تربية النفس على الاقتصاد في الإنفاق وعدم الإسراف وماذا نقول بدن قفكو إنانو كلاكعين الرميس يسكون ده للتراه أو يسمي سامية ده الدخل كاجي خرج كاجي يسمي سامي ويدو طمع وسكا كابلا